gudoomiye horta waad mahadsantay waqtigaad noo soo hurtay bal bangiga dhexe ee Jamhuuriyadda Somaliland dad badan sawir guud may ka haystaan markay arkaan horta siduu u shaqeeyaa se muxuu qabtaa sharax guud naga siiyo بسم الله خضرو markale aad baad u mahadsan tahay bangiga dhexe ee Jamhuuriyadda Somaliland waxa weeyaan waa horta waa hay'adda u sarreysa ama highest regulatory and oversight authority marka la yiraahdo ama waa hay'adda u sarreysa ee maamusha maxaa la yiraahdaa hay'adaha maaliyadeed ee dalka sidoo kale waa hay'adda u sarreysa ee awoodda u leh maxaa la yiraahdaa inay soo daabacdo maamushana lacagta dalka sidoo kale waxyaabaha bangiga dhexe awoodihiisa kamid ah waxa kamid ah inuu noqdo government agent baa la dhahaa waa dawladda meesha ay dhaqaalaha dhigato dhaqaalaha dawladda dhexe ama treasury ama ministry of finance dhaqaalaha dawladda dhexe leedahay maamula sidoo kale bangiga dhexe awoodihiisa iyo doorarka ciyaar waxa kamid ah kobcinta iyo hogaaminta guud ahaan sectorka dhaqaalaha ee dalka doorarka bangiga dhexe runtii iyo waajibaadkiisa waxa kamid ah inuu dawladda kala taliyo ama madaxweynaha ka advice gareeyo xagga dhaqaalaha economic focus ama economic outlook dalka xagga uu dhaqaaqayo go'aamada dhaqaale ee madaxweynuhu qaadanayo inuu kala taliyo waxa weeyaan waa doorarka uu ciyaaro bangiga dhexe waxa kale oo kamid ah waxa la yiraahdaa mararka xaaladaha adag dhacaan ama arrimaha dhaqaalaha ay ku dhacaan hay'adaha maaliyadeed dalka waxa la yiraahdaa lender of last resort baa la dhahaa waa meesha u dambaysa lagu baxsado ama halka loo irkado marka duruuf dhaqaale timaado weeye shaqooyinka iyo doorarka kala duwan ee waajibaadkiisa ah waxyaabo uu hayaana way jiraan waxyaabo kamid ah uu higsanaya sidoo gaari lahaana way jiraan